waxyaaba aakhiru zamaanka calaamooyinkiisa waxa kamida ninka uu nabigu sifayn doono kamida ehelkiisa ee la yiraahdo mahdiga la sheegayaana midka ay shiicadu sheegaan maaha maxamed al-hasan al-askari isagoo yar buu meel goda ku libdhayo godkaas uu ka soo baxayaa bay yiraahdaan shiicadu nimanka raafida la yiraahdo marka kaasi wax jira maaha waa khuraafaad marka mahdiga nabigu sheegay mahdiga shiicadu waa kala qolo mahdiga shiicadu wax asal leh maaha abaatiishoodii khuraafaadkoodu kamidii عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول لا تذهب الدنيا تجي ميسو دمان ميسو حتى يملك العرب جرى عربته ومدح النوضة رجل من أهل البيت من قرابة إذا كمده عربت مركا النبي وحا وشاقي ولا جاي أبا وقت جاي إن يقولك وكسب حياك بدين عجمتي نوي هاصي منون يواضي اسمه مقعيسو وحا وافق سي اسمي مقعيقة ده محمد أيام العرنية أبو القاسم محمد مقعيسي كايقا اسوافقية سيقنا محمد بالله هذا أبو القاسم نوال العرنية وأنا قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال مركا النبي وحول إن في أمة المهدي نين مهدي الله يراه هي أمة إذا كتيرة يخرجوا صباحيا يعيشوا حنولانا يا 5 أو 7 أو 9 انت مذون 5 7 9 زيد إنك زيد لا يراه زيد العمي وحديث كسنة كيسة كتيرة الشاك إنك شكيوي يستدح ذن إريك ويريوك لقرواي قال وحول قلنا وحان وما ذاك سنين ما السنداد وشيدا مركان عدلاد هاي 5 7 9 قال مركان النبي وحولي وما ذاك مركي إلى هذين محي أرنتني وشيدا ما مالما ما بلا ما السندا وحول السنين والسندا 9 سنة يوشوغيا فيجيء إليه رجل نمباوي من أيام هذيك فيقول حولي يا مهدي أعطني وروان باهنا وحيدي من شحاذا يا ماشا مرأي فيحثي له في ثوبه مردي سوق قرية ما استطاع أنك أسوح كره أن يحمله ونقاضه مركا أنك أتغى ليش فقرك أي توريا صومالي داينا إسهلان كونك سنايا الوحيدي مركو هذا شحاذه وحو كرريا إنه قادي كروايو بس markuu ka daalo buu tagaya macnaheedu waxa way futuuxaadka badanaya saaqada barakoobayso diinta Ilaahay baa lagu dhaqaya oo sharcigu dadka ku xukumaya marka wala dhargaya bidaat waqtigaasi ismu dul taagin oo nabigu ma cayimin laakiin waa akhir zaman saalka wuxuu soo weydiinayaa wuxuu leeyahay waa goorma waqtiga saxda ah ee uu mahdigu soo baxayo مسجران على ما لقوا قرانا يو صوبحتان كيس طبعا مسألة المهدية كهذا الكيدو مسألة وقت فاهين يدير ربعان لكن سكوا وحرب أنا المهديو وعلى مدى قيامته وين متكمل وين مهدينا وحاجة بعض كوها يسوع جاري دونا عيسى سود دقي دونا عليه السلام يسوع تشوق عيسى نتضبصن وتشوق دونا دجال باكو سو جاري دونا marka ciise iyo mahdiga iyo dajaal way isa soo wada gaari doonaan oo waqti kooban bay wada noqon doonaan ka waxaan ka dheerayn riwaayadka qaar tilmaamaya inay soo gaarayaan juuj ma juuj marka mahdigu wuxuu ka mid yahay oo kuwa ugu horeeya ka yahay ashraatu saacati al-kubra ashraatu qiyaamada inay dhacaysa tilmaamaya waaweyn waqti kasoo soo bixi karaa علامات وقارة ومركا لقى وقتها انت الله فيري وقتها مهدي وصوب بحلها ولا تشوغا لقو قران كر أنا قران معي لكن نبغى حوت المامي إنه صوب بحدونا حلي دول كلا بوحية ظلما وجورا ظلم إيه جور إيه حد قلب أدوية قبصدي انت عن قران يجنانا هذا أدوية إن بدن أو انت هذا بدن ظلم إيه جور كوا كغالب نقضي
wuxuu nabigu tilmaamay oo kaleeto xilli bayna khaliifatayni laba madaxa ay isku haystaan kursi labadee weeye ma garanayno hebel iyo hebel laynama dhihin marka way dhici kartaa wakti kasta inuu soo baxo wayna dhacdaa marar badan dad inay sheegtaan anigaa mahdigii ah kaliibyo badan baa la ii soo diraya maalmo dhoweyto dad kala duwan oo mahdi sheegtay ah nabiguna magaciisa waa sheegay inuu maxamed ibni cabdilaahi la yihahdo magaciisa waa magacayga oo kale magaca aabihiina waa magacayga aabahay oo kaleeto uu yiri inuu isaga ahlubeytkiisii iyo duriyadiisii ka mid noqon doono طبعا faatimo baa wax ka farcameen min duriyati faatima inuu noqon doonana waa sheegay laakiin wax sanadana ma xadidin oo waqtigaana ma jaangoynin wax uu sheego intaan garanayo calaamad gaar oo isaga ka muuqato oo astaantaasa isaga ka muuqata la yirina aan magacyada iyo tilmaamaha guud ahaan oo dad badan qaadan karaan hadda ma xasuusto maqana laakiin qofka hadduu rabo inuu faahfaahinteeda kutubta ashraatu saaca qiyaamada ka hadashay ee faahfaahsan buu ka heli karaa laakiin ha ku dadaala waxa asaxay ee sugnaaday inuu fiiriyo sida kitaab ashraatu saacati ee yuusuf alwaabil oo kaleetiyo kuwa badan oo laga qorayo run iyo beenba ururiyana waa jiraan hadduu rabo wax intaa kasii faahfaahiyo yuusuf alwaabilla mawsuucadan la yidhaha mawsuucatu ashraati saaca ama mawsuucatu lmahdi oo mawsuucada labada mujalad ee midna wixii soo sugnaaday wixii daciifa ku qoran tahay buu iyadana ka fiirin kara bilahi towfiiq bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyadda awlaadda iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra